بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiinta ah what is a fiat money lacagaha laga isticmaalo dunida ayaa loo yaqaanaa fiat money sida shilin Soomaaliga dollarka yuurada yuwaanka iyo wixii la halmaala haddaba qeexida fiat money waxaan dhihi karnaa waa lacag ay soo saartay dawlad waxaana sharciyada isticmaalka iyo in la kala qaato siiyo isla dawladda waxaana la dhahaa legal tender sidoo kale lacagta fiat money laguma bedelan karo dahab oo kale sidii nidaamka gold standard haddaba si aan xog dheeraada uga helno gold standard fadlan ka dhigayso lifaaqa hoose oo aan hadda koor ku soo sharaxnay dhanka kale haddaan wax yar iftiimino halka ay ka timid fiat money waxa hal abuurkeedii lahaa China qarnigii 11aad waxa ayna caan baxday qarnigii 20aad balse 1971 markii si toos ah loo joojiyay isticmaalka dahabka ama gold standard ayay fiat money noqotay mid laga wada siman yahay dunida oo idil mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo